wafdi uu hogaaminayay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Somaliland Dr. Axmed Cali Maax oo ay weelinayeen agaasimo waaxidyo ka socda wasaaradda beeraha Somaliland ayaa soo gaaray magaalada Ceergabo waxayna wafdidan agaasimuhu booqdeen xarunta wasaaradda beeraha ee gobolka Sanaag halkaas oo ay kulan kula qaateen isuduwaha wasaaradda beeraha ee gobolka Sanaag iyo sidoo kale shaqaalaha wasaaraddaasi waxaana wafdidan uu hogaaminayay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland ay wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolka Sanaag ku wareejiyeen qalab cusub kaas oo loogu talagalay xafiiska wasaaradda beeraha ee gobolka Sanaag waxaana kulankaasi kadib saxaafadda la hadlay isuduwaha wasaaradda beeraha ee gobolka Sanaag Maxamed Yuusuf Tegal halkan waxaana soo gaaray agaasimihii guud ee wasaaradda beeraha iyo tiim kale oo mas'uuliyiin oo agaasimayaal waaxeeda oo hogaaminayo waxaanu leenahay aad iyo aad baanu ugu faraxsanahay imaatinkiina in badanna waa idin sugaynay ilaahayna waxaynu ka rajaynaynaa imaatinkiinaasi inuu khayr inoogu dhammaado khayrna aa ku tagtaan biidni illaahi alkariim aadna waanu idinku mahadnaqaynaa imaatinkiina wasaaradduna muddo dheerba diyaar bay idiin ahayd imaatinkiina waana ku mahadsantahay sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo halkaasi ku soo dhaweeyay wafdidan uu hogaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Somaliland aad baan u soo dhaweynayaa agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Axmed Cali Maax soo dhaw baan ku leeyahay gobolkaagi baa timi waa gobolkaagi aad baan kugu soo dhaweynaynaa aad baan ugu baahannahay inay nooga yimaadaan wasaaradda beeraha agaasimaha wasiirka aad baan ugu baahnayn runaantii waayo aad baanu uga habsaanay xagga beeraha maadaama ay xoolihii baxeen waxaan u baahnayn in la sameeyo dardargelin xagga beeraha si ay dadku ula soo baxaan waxay cunaan oo ay ugu jeestaan shaqadooda aad baan kugu mahadcelinayaa oo ku soo dhaweynaya boqolkiiba boqol soo dhawaan ku leeyahay agaasime ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Somaliland Dr. Axmed Cali Maax oo ka warbixiyay ujeedada socdaalka salka ku hayo iyo sidoo kale qalabkan cusub ay ku wareejinayaan wasaaradda beeraha ee gobolka Sanaag salaan kadib waxa weeye maanta socdaalkaygani waa socdaal shaqo ama kormeer shaqo oo la doonayo inaanu ku dardargelino ka wasaarad ahaan xarunta gobolka Sanaag ee wasaaradda horumarinta beeraha oo muddo la lahaa wasaaraddu halkaasi damay gaadhin laakiin waxaanu leenahay wasaaradda halkaasi way gaadhay maantana waxaanu nimi inaanu dardargelino aanu isla eegno baahiyaha ka jira gobolka ee xagga beeraha ah waxaanan safarka iyaga anagoo ka faa'iideysanaynana gobolka maanta ku soo kordhinay xafiiskan qalab isugu jira kombiyuutarro agabkii lagaga shaqaynayay xafiisyada oo kumbilada wixii ka dhimanna waynu isla eegaynaa marka aad buu u mahadsanyahay isuduwuhu iyo shaqaalaha runtii u dhabar adeegay hawshaa culus ay gobolka u hayaan laakiin maanta laga bilaabo waxaan farxad ii ah in xafiiska uu u shaqeeyo sida xafiisyada kale ee gobolka ku yaala waxaanan leeyahay waxaa laydinkaga baahan yahay dardargelin gobolku waa gobol beereed marka in la arko inuu gobolkan yahay gobol ku horeeya xagga beeraha oo aad ismuujisaan oo aad tustaan gobollada kale ee Somaliland inuu gobolkan yahay gobol wax soo saar berigii horeba xitaa baradhada nimanka Ethiopia nooga timaada oo gobolkii ay ka iman jirtay oo Soomaaliya oo dhan looga qaybin jiray marka waxa loo baahay inaad arrinkaas soo celisaan si kastaba ahaatee waa markii ugu horeysay ee tan iyo xukuumadda Siyaad Barre uu gobolka Sanaag soo booqdo agaasimo guud oo ka socda wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland iyadoo gobolka Sanaagna uu noqonayo gobolka ugu baaxadda weyn gobolada Somaliland isla markaasina ku haboon wax soo saarka beeraha Barkhad Maxamuud Gedi bulsho